السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحة عافيمات تاما ينور الوناكسن باندين رجينيا مسوهنشن وقلس فهن كرقا قيلة هوينكا يحنونكا قويشا مركا لعدن كي قلمدا لقوشرو هوينكا يعبادان رقا كوعلا والله يستم كو فرحة قلس فهمين إن شاء الله مقالك سوق عدن تونا waxaa jirta xaalad rag way qalad fahmaan oo laakiin qalad fahankaasi iyagu way isku arkaan inay sababeen ama ay keeneen qalad fahankaas oo ah haweeneyda qayladeeda ka imanaysa xilliga ay sameynayaan gogosha ayay ragga qaar qalad fahmaan xilligan waxa dhacdan haweenku saddex qaab bay u qayliyaan marka gogosha iyo galmada la joogo saddexda qaab ay u qayliyaan qaybi waa qaybta koobaad oo waa haweeneyda ku raaxaysanaysa galmadii iyo gogoshii oo dareenku qaylada uu ka keenay midna waa haweeneyda oo matalaysa ama jilaysa qaylada oo ninka madaxa ugu buuxinaysa oo ninka markaas ay ka dareentay inuu daciif yahay ama inaanu shaqadiisa si fiican u qabanaynin laakiin moralka u dhisaysa oo isaga madaxa u buuxinayso qaylo iyo jilliin ay jilayso ayay sameynaysaa laakiin aanay gogoshu ka keenin galmadu ka keenin laakiin iyadu ay matalayso ama ay jilayso marxalad saddexaad baa jirta oo ah haweeneyda oo waxay la qaylinaysaa intay xanuun galmaday ku xanuunsanayso ama haweeneyda oo dhibaato caafimaad ay jirto tusaale ahaan xubinka taranka haweeneyda oo qallayl ku jiro oo qoyaankii ka dhamaaday ama haweeneyda hormoonadu si fiican aanay u shaqaynaynin oo aan si wanaagsan galmadii ugu raaxaysanin oo dareenkeediiba aanu kacaynin ama xanuuno dhinaca dhimirka oo jira oo haweeneyda ku yimaada oo markaa keenaya haweeneydu inay noqoto haweeney iska depression ah oo iska daalan oo aan dareen samaynaynin oo aan farxad galmadii u samaynaynin oo diiqadaysan oo ninkii dhibsanaysa kadibna markuu galmo ku sameeyo qaylinaysa xaalad caafimaad ama physiologically ha noqoto ama psychologically ha noqoto labadaba yacni inay xaalad caafimaad jirto way ku qaylisaa haweeneydu ninku marka uu gogosha ku ay samaynayaan inay jilayso oo ninka maskaxda ay ugu buuxinaysana way ku qaylisaa haweeneydu inay raaxaysanayso raaxa ay ka keentana way ku qaylisaa marka arintani waxa weeyaan haweeneydii oo xaalad caafimaad ku jirta oo xubinkeedii taranku qallayl sameeyay oo marka galmo lagu sameeyo xanuun dareemaysa oo waxaan dhibsanaysa ayaa qaylada ay sameynaysaa ninkii isagu isku bogaya oo cirka isla maraya oo uu farxaya oo uu dareemaya markaa inuu yahay nin awood badan oo isku arkaya inuu hawshan si fiican u qabtay ama haweeneydan si weyn u qanciyay ama isagu inuu yahay nin awoodiisa dhinaca gogosho ay aad u badantay arrintaasi marka waa qalad fahan aad u weyn ninkana faan iyo inuu markaas isla baxo isagu oo isqanciyo oo cirka isla mara noqota marka waxa loo baahan yahay ninku inuu saddexdan xaaladoodba kala karto xaaladan inta badan waxa lagu ogaadaa xaaladda caafimaad darrada ku timaada haweeneyda qayliso in aanay jeclaysanaynin gogosha in lagu laabto oo hal mar haddii la sameeyo inay markiiba ay ka tabaabushaysanayso xataa wax yar hadday socotay hawshu oo wax 2 minid ka yar hadday socotay oo ninku hawsha uu dhamaystay inaanay jeclaysan in la sii wado sidoo kale waxa la arkaa wax diyaar garow haba yaraatee inaanay sameynaynin waxa kaloo la arkaa ninka inay xilliga uu hawsha ku sameynayo ay calaadayso wajigeeda iyo markaa moralkeeda intaba inay cara ka muuqato oo aanay wax isbedel shucuureed aanu ka muuqan laakiin jirkeedii indhaheedii caadi u shidmayaan wajigeeda caadi isku diidsiinaysa iyadoo xaadira oo wax isbedel shucuureed aanu ku dhicin ay diidayso waxan xaaladaha marka haddii lagu arko haweeneyda waa in caafimaadkeedii aad baadho dhakhtarad geyso inaad adigu aad markaa isku bogto ama isla calan walayso ama isku baxdo maaha
ama tiraahdo awood badan baanay maaha xaaladaas waa in si degdeg ah dhakhtar ugu geysaa haweeneyda xaaladeeda caafimaad la baara intaas aan ku soo ururinayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.